السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما نحن قادنا عشر كيني سديتني اللحاد كتابك العربية بين يديك قيبتي سلبات وحدة أنكسو تشرني ووحدة شنية طبانات عشر كعبان كسوحوية هي أنواع التلوث البيئة وديغانك وسخوغي سا نوعية وقيب سمو أيين هالكان كغالينا deegaanku marka uu wasakoobo qayba ayaa loo qaybin karaa marka qaybahaas ayaynu mid kasta dul istaagi doonaa oo ka hadlaynaa tahya waa diyaar garoobid fakar fil ijaabati ka jawaabista aan al-asilati taaliya su'aalahan soo socda su'aasha koowaad waxay ku leedahay ma ahammu suwar at-talawuth maxay yihiin wasakhowga noocyadiisa ugu muhiimsan amaba qaybihiisa ugu muhiimsan wasakhowga ayaa sheegaysa su'aasha labaad waxay tahay mal amraad maxay yihiin xanuunada allati taasoo yusabbibuha uu keeno at-talawuthu wasakhowga xanuunada uu keeno amaba xanuunada ka dhalan kara ayaa sheegaysa su'aasha saddexaad waxay tahay hal yatalawathu al-qidaa'u ma wasakhowba cuntadu ma wasakhowda haddii ay cuntadu wasakhowdana kayfa see ayay wasakhowda qaabkii ayaad sheegaysaa su-aasha afraad waxay tahay hal yatalawathu almaa'u biyuhu ma wasakhoobaan iyo walhawaa'u hawadu haddii ay wasakhoobaan kayfa see ayay u wasakhoobaan hunaaka halkaas waxaa ah suwarun noocyo cadiidatun tiro badan litalawuthi albay'a oo bee-ada iyo deegaanka wasakhoobidiisa u sugnaaday ahamuhaa waxaa ugu muhiimsan talawuthu alhawaa hawadii oo wasakhowda وتلوث الماء بيه أو وسخوبة وتلوث التربة عردي أو وسخوبة والضوضاء بوقي يصوحنكي وفيما يلي وحصوص عضا تعريف وقيحد بهذه الأنواع نوعيا عن صوت شيغني أيا لقيحيا أو من مدلو دلستاقيا وحال بيولي هالكاس بمعنى الدنيا ذا وحا كتشرة أما هو ودنك نوعيو أيا كتشرة tiro badan oo waxa weeye wasakhowga deegaanka ah waxaa jira wasakhowga hawada waxaa jira wasakhowga biyaha waxaa jira wasakhowga carrada ama ciidda saad u taqaanid at-turba waa carrada ama ciidda ayaa la dhihi karaa waxaa jiri kara dawda wasakhowga qaylada ama buuqa ama sawaxanka waxa dhahdidba marka magaalo kale la joogo buuq waa ka jira ama qaylo ama sawaxan waxa dhahdidba ayaa ka jira marka تاس لفتو والسخو أي كينيسا وفيما يلي تعريفهم بهذه الأنواع أوكي هذا بقيبتك واد محيطهي تلوث الهواء وهودي أو السخو ده مركا وانقيح هنا متكستا هذا محال يلي الهواء هودو الذي كاسو لا رائحة له أن لهين وحرعة يصبح وحون نقضى هواء هو له رائحة أسقناضي أي أسقناطي بمعنى هودي وحين نقطة من أرل أي نقطة وله لون وحين نقطة من مدبله أيضا سيدو كلام مركا هودي وسخوده وحين نقطة من مدبله أو أرل وصو في هذا التلوث سببت كانتي وسخوجه وحيتهي إحراق النفط جبيد لجبي سريدي بسبب محركات السيارات وغيرها تاسو وحوي سببتي دو أيتهي baabuurta matooradooda sababtiisa iyo waqayriha iyo waxaan baabuurta ahayn matooradooda sababtooda amaba mishiinadooda oo dhihi kartaa mishiinadooda sababtooda marka mishiinadii ay shaqeeyaan mishiinkaas ama gaari ha lahaado ama wax kale ha lahaado gaastii ay ku shaqeynayaan ayaa gubanaysa gaastii markay gubatana hawada ayay gelaysaa هودي بأمرها وسخوبيسة أو ساك وسخوبيسة ويضر وحرب يا تلوث الهواء هواء وسخوبيدي سحر لبيسة بصحة الإنسان قفك عافمات كسائي لبيسة فيؤدي وحكينا إلى التهاب العيون اكفشن يا بكتيريا يتشير مسنة كل عشان أي كنيسة التهاب العيون وعنده أو اكفشن أما بحنون أو كل شو يورئتي يسنبك أو حنون كل شو ويسبب تلوث الهواء هودي أو وسخوده انت أكلية ما كنت بحي كلو كيني كرتا كذلك سيدا سوكالي موت الحيوان حيوان كينو لنتو
xayawaanku markaa innaga lafteenu xayawaan baynu nahay. xayawaan oo dhan noocuu doonaba ha ahaade ama dad ha noqdo ama wax kale ha noqdo inuu dhinto ayay keeni kartaa hawadii marka ay wasakhowdo iyo wanabaati iyo wax kasta oo soo baxa ama dhir ha noqdo ama wax kale ha noqdaba. marka hawadii wasakhowdo xayawaankii inuu dhinto ayay keeni kartaa, dhirtiina inay dhimatana waa ay keeni kartaa. talawuthul maa waa biyihii oo wasakhooba yu-addi wuxuu keenaa ilaa taqliili ilmaa biyihii oo yaraada annaqiyi saafiga ahaa walcadbiyi kuwii macaanaa alladii kaasoo yastacmiluhu linsaan bini aadamku isticmaalayey amaba dadku ay isticmaalayeen fi shurbi cabitaanka ay u isticmaalayeen wanadaafati iyo nadaafadda iyo isnadiifinta ay u isticmaalayeen. qaybta labaad waa maxay? waa biyihii oo wasakhooba. haddaba biyuhu marka ay wasakhoobaan yu-addii ilaa taqliili ilmaa'i naqiy waxay arrintaas keenaysaa in biyihii ay yaraadaan nadiifta ahaa amaba saafiga ahaa, kuwii macaanaana inay yaraadaan, taasoo waxa weeye bini aadamku u isticmaalo cabidda iyo nadaafadda. wa sabab fi talawuth ilmaa, haddaba maxaa sababa oo keena in biyuhu wasakhoobaan? kow, waxaa keena ramyu lmawaad alkimaa'iya waxyaabihii kiimikada ahaa in biyihii lagu dhex tuuro, wannufaayaat alxayawaaniya sidoo kale in biyihii lagu dhex tuuro waxyaabihii hadhaadigii xayawaanka in biyihii lagu dhex tuuro, ama lafa ha noqdo ama ha noqoto baruur ha noqoto ama uus iyo calool ha noqoto, wax kastoo xayawaan ka soo hadhay ama dhawartiisiba hadday doonto ha noqotee, wax kastoo xayawaan ka soo hadhay in baddii ama biyihii caadiga ahaa lagu dhex tuuro waxay keenaysaa in biyihii ay wasakhoobaan. wannabaatiya waxyaabihii hadhaadigii dhirtana in biyihii lagu dhex tuuro waxay keenaysaa in biyihii wasakhoobaan. wa miyaahu sarfi biyihii waxa weeye bilaacadaha asixiya caafimaadka loo nisay filbixaari in baddii lagu daadiyo wal anhaari iyo webiyadii iyo wal aabaari ceelashii. wa yusabibu wuxuu keenaa talawuthulmaa biyihii oo wasakhooba amraadan xanuuno ayuu keenaa kathiiratan fara badan lil insaani qofka ayuu keenaa, xitaa waxaa dhici karta xanuun wax ka weyn inuu keeno oo geeriba uu keenaa. wa yu-addi wuxuu keenaa ilaa mawti alxayawaan xayawaankii inuu dhinto ayuu keenaa iyo wanabaati iyo dhirtii, xayawaanaadkii iyo dhirtiiba inay dhintaan ayaa ay keeni kartaa biyihii haddii ay wasakhoobaan. talawuthu turba caradii oo wasakhowda yutlifu hada annawc noocan wuxuu dilaa min atalawuthi wasakhowga aturbata carada ayuu dilaa aljayidata wanaagsan. yutlifu wuxuu dilaa hada annawc noocani min atalawuthi wasakhowga aturbata aljayida carada wanaagsan ayuu dilaa. wa yu-addi wuxuu keenaa haadaa kani ilaa faqdi masaaxatin in la waayo qadar amaba qayb min alardi dhulkii ka mida in la waayo, allatii taasoo yusracu lagu beero dheh fiiha dhexdiisa annabaatu waxyaabihii dhulka kasoo baxaya lagu beero amaba dhirti dheh, liqadaa'i linsaan si loogu cuntaysiiyo bini aadankii iyo walxayawaani xayawaankii. addawda waa buuqii. takhuru dawda waxay badataa qayladu filmudini magaalooyinka ayay ku badataa. wa sababaha sababteedana waxay tahay wasaa'ilu naqli habkii isgaarsiinta amaba gaadiidkii dheh. wasaa'ilu naqli waa gaadiidkii oo min daayiraatin diyaaradihiya, wa xaafilaatin basaskiya, wa qidaaraatin tareemadii ah, wa sayaaraatin iyo baabuurtii ah, kamaa tusabibuhu sida ay sababto oo ay keento al-ajhisatu alkahrabaa'iya qalabkii korontada almukhtalifatu ee kala gedisnaa allatii taasoo filbuyuuti guryaha taalla. haddaba halkan maxaa laga hadlayaa? waa qayladii. dawda waa maxay? waa qaylada ama buuqa. haddaba waxaa lagu yidhi waxay badataa qaylada iyo buuqu waxay ku badan yihiin magaalooyinka. sababteeduna waxay tahay waa wasaa'ilu naqli min daa'iraatin wa xaafilaatin wa qidaaraatin wa sayaaraat dheh. waa wasaa'ilu naqli maxaa la dhahaa? waa isgaarsiinta amaba gaadiidka ayaa la dhahaa. gaadiidka isgaarsiin yaana dhihin, gaadiidkii weeye. wasaa'ilu naqli waa gaadiidkii. sababteedu maxay tahay? waa gaadiidkii oo diyaaradaha ka mid ah. waxaa ka mid ah diyaaradihii ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a basaskii ayaa ka mid a, waxaa ka mid a tareemadii ayaa ka mid a, waxaa ka mid a baabuurtii ayaa ka mid a. marka markii meeshii ay baabuur iyo tareemo iyo waxaasoo dhan ay joogaan dee qayladii way badanaysaa iyo sawaxankii.
كما تسببه الأجهزة الكهربائية المختلفة. sidoo kale maxaa keena qaylada iyo sawaxanka qalabkii korontada ayaa keena ee guriga yaalay qalabkaasi ha noqdo talaagadii oo kale feeradii oo kale ama kombiyuutaradii waxaas oo dhan waxay keenayaan sawaxan iyo qayl ay keenayaan وتؤدي الضوضاء هذا قيلده maxay keentaa ila ضعف السمع in maqalkii uu daciifo iyo wal qalab waxay kala keentaa walwal iyo walbahaar ay keentaa maanta 10 intaas ay ku yeeyay 10 lamid inta ku kulmanay sidaas inay galiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.